بسم الله الرحمن الرحيم ومركا لا برنامجكينا ama cashirkeena ku saabsan barashada internetka maanta waxaynu baran doonaa sida loo sameeyo new hotmail account amaba hotmail account cusub marka ugu horeysa aad sameynaysid hotmail account waxaa laga baahan yahay inaad kicid browserkii aad internetka gelisay kadibna aad ku qortid halkaasi www.hotmail.com kadibna enter button doontaa markaad enter siisid kadib waxa kusoo bixi doona page-kan halkan labadan barka bogos waxaa loogu talagalay in lagu kala qoro kaasara waxaa loogu talagalay in lagu qoro account-ka ama username-kii kana password-kii marka kuwan waxaa la isticmaalaa marka uu qofku hore u leeyahay hotmail account inagu maanta waxaynu doonaynaa hotmail account hore ma haysano sidaa daraaddeed waxaynu doonaynaa samaysano hotmail account cusub marka hoos baad degeysaa waxaad ka dooran doontaa ama waad ku dhufan doontaa sign up now baynu ku dhufanayna sign up now markaan ku dhufano waxay noo soo bixi doonaa marka page-kan kale oo aynu buuxin doono marka information-kan matala halkan waxaan ku qoray tijaabo last name-kana waxaan ka dhigay tijaabo 1 username-ka marka waxaan ka dhigi doonaa username waa kan ku gelina marka waa kii ku gelinay labadii bogos ayna soo dhaafnay bogoska sare wixii lagu qoray lahaa tijaabo 1 inta aan ku qoray tijaabo 1/2010 @hotmail.com aan ka dooranaa marka tijaabo 1/2010 marka password baad sameysan doontaa aad u garanaysid marka password-ku waan ku koobnaadaa nambaro iyo xarfo nambaro capital iyo xarfo capital iyo waliba qaar small letters isku jira si password-ka uu ahaado mid strength halkan bayna doonaa marka country waxaan ka dooran doonaa wadanka wadankeena Soomaaliya ka dooranaa halkan baad soo furaysaa marka birth date waa waqtigii ama date-kii dhalashada bishii uu dhashay qofku maalintii uu ka dhashay ama maalin taariikhda intii ahayd iyo waliba sanadkii uu dhashay inta markaad soo dhameysid waxaad dooran doontaa genderka ama jinsiga qofka select software-kan kadibna waxaad ka dooran doontaa male ama female marba qofku wuxuu yahay hoos markaa usii dig country code waa furaha wadanka marka lasoo garaacayo lagu soo gelayo marka Soomaaliya ayaan dooran doonaa Soomaaliya furaheedu waa +252 halkana marka waxaad ku qori doontaa numberkii 6 tirada ku horeysa inta Somaliland oo kale markaad joogto 6 baad ku horeysanaysaa 6 iyo numberkaaga caadi ah inta markaad dhameysid halkan waxaad ku qori doontaa email hore u jiray oo shaqeynaya marka email-kan wuxuu taro casharada dambe aynu ka hadli doonaa waa alternate email address baa loo yaqaanaa inta markaad dhameyso hoos baad soo degi doontaa marka halkan baad imanaysaa boxkan picture-kan baad marka sawiradan ama nambaradan xarfaan xagga sare ku qoran baad ku qoraysaa halkan y k p m s h inta markaad soo dhameysid markaas aad password-kaaga u ilaawin waxaa lasoo furtaa notepad yar kadibna notepad-kan baad ku qoran doontaa username-kii aad ku gelaysay iyo password-kaaga weliba inta markaad dhameysid hoos baad degeysaa waxaad leedahay create account-kaasi haddii wax khaldan yihiin wuu inoo sheegi doonaa haddii kalena hotmail-kiina toosba markaa inoo gelin ayuu noogu wadayaa hadda hotmail-kiina uu samaysmay wax errorina ma jiraan waxaynu sugnaaba waa page-kii amaba hotmail-keeni ama user-keeni oo inoo soo baxa waa kan marka user-keenu saasuu ku samaysan yahay hadda halkaa waxaa ku qoran tijaabo 1 oo ah magacii aynu markaas u soo bixinay waynu ka hadli doonaa waxyaabahan oo dhan mid baynu uga hadli doonaa laakiin maanta waxaan intaan samayntiisu baynu ka hadlaynaa si aad uga baxdid waxaad soo furi doontaa ama waxaad ku dulfan doontaa magaca hotmail-ka username-kaaga kadibna waxaad ka dooran doontaa sign out iminka wixii ka dambeeya waxaynu haysanaa username account sidaa daraaddeed iminka wixii ka dambeeya uma baahnin inaynu mar dambe stepkii dheeraa marno waxaa linooga baahan yahay inaynu username-keeni ku qorno halkii loogu talagalay iyo password-kii